caqabado ma jiraan intaad hawshan aad ku jirtay wax caqabado ah oo aad way jiraan saddex caqabadood baan horta garanayaa. soo gudbinta barnaamijkan waxaa kaalin muhiim ah ka geysatay shirkadda korontada ee Nexom. mid wuxuu ahaa masaajid anagoo ku tukanayn nin baan waxaan ka waaninay xanuunkaan inuu waxba ahayn wax ilaahay ugu talagalo waxaan ahayn oo mudanay asaga laftiisu wuxuu ii sheegay inuu meel oga yimid uu garanayn. markaas wuxuu ku dhaaranayaa ninkaas wuxuu leeyahay anu hatta xaraan ma sameyn dadku waxay aaminsan xaraanta kaliya inuu ku yimaado moogta anu waxaas ma gelin xaaskayga ma qabto si wax jiraan garan maayo masaajid baan ku jirnaa. markaas wacyigelin baa meesha anna ninka u samaynayaa u wadaa waxaan anaga noo xeera dadka xanuunka qaba inay qariyaan magacooda sida aniga qofka soo bandhigo isaga si u taala isaga moogtay dad baa moogtay wixii cuqdad baa la geliyay qofka markuu ku yiraahdo xanuunkaasan qaba midab kala yeelanaya nooc kala ekaanaya marka taas kala faysa moogtay iyo waxyaabaha dambiga ugu soo firsay kamid tahay nin wadaada oo wadaad lama oran karo wadaad ku sheega oo maartay isla ka gaabsaday ma masaajidka istaagay waxyuu wacday wuxuu yiri dadka xanuunka la nool HIV AIDS-ka dadka la nool ama AIDS-ka dadka la nool bulay waa in la gubaa masaajidka xaaj cali bay ayuu nool waa in la gubaa waa in loo gargaarin waa in wax lagu sameeyo marka wuu ilmay awal baad siga naf ahayo meel uu maray garan laayo xaaladiis ma ku adkeyd moogta maxaa imanaya marka kaasu kale iyo markii dadka ka soo dhaxbaxaan oo wax ka sheegaan maxaa imanaya culays intee leeg baa imanaya waa istaagay dadkii way maqlaya waxaan ku yiri ana xanuunka la nool ana la qaba waana ku durayaa baan ku yiri waana dhaarta markii wali waa dhaar baan ku dara moogta waan ku mudayaa waliba irbad baan kugu mudayaa dhiigayga ka soo qaaday fariisa koodkana waa ka dhaqaaqaniga maxaa yeelay meesha waxa kale adu raali gelin badan waa laga bixiyay dad badan oo wadaado fiican baa joogay aad u fiican wadaadana isku mid ma dad iska bartay xoogaa inta yar barteen dadku moodinay ka sareeyaan oo kale oo intii la waalato iska jiraan laakiin qofka waa inuu misaan sameeyaa waa inuu oran gaalada kaliya ku dhaca waa inuu oran ani muslim baan la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah waxa jira marka waana qabaa xanuunka marka dadka aaminsan iyo dadka u qaba in ma garanaysa ama neef lagu kala qaaday ama candhuuf lagu kala qaaday ama waxa lagu kala qaaday ama xanuunka inta lagu waxyaabaha midiga soo gali kamid taa waa midna waxay ahayd gabar aan qaraabana anigu aabbo xanuunsan baan guriga ku haysta yaan guriga keenay gabadhii cuntada loo karkarisay muddo la joogtay ayaantii dambe ninka iska buuran oo quruxda badan halkan joogay xoogaa adigu gabadhi baa hadal ay ugu turtay afka intaan u dhaweeyaan xanuunkaas aan la noola waliba HIV waxaas ma oran AIDS baan la noola baan boorsada guriga taale ilowday way carartay xagee joogta halka xaafada habla naftiina ka dhacdo xeer wada macnaha xeerku maray culayska magaca leeyaan sheegay magaciisa ba markii la yiraahdo qofkaas saas weey magacaas culayska uu leeyahay baan la yaab mugta boorsada baan qaado ka dabageeyay xaafaday tagtay baan uga dabageeyay taa mid bay macnaha qofka inaan la qaldin aniga waa la qaldan laakiin aan loo cid qaldan kuma talagelin dadka wax qaldayana maartay waxaan ka barnaamijka hadda ka hadlay kamid waxaa jira maadada kale waxay ahayd waa laqati kale waxa weeye marka ujeedka aan u soo noqono marka barnaamijka aniga aan ugu kalafay inaan maartay aan maanta imaado halkan waxa weeye 11,700 oo qof oo Soomaali ah inta dhimatay inta nool waa isku kay jiraan Soomaaliya oo dhan weeye 11,700 oo qof baxanuunka la nool HIV AIDS waxa la dhahaa markuu ka gudbo HIV markuu ka gudbo oo qofka uu daciifiyo oo waxba iska celin karin baa la dhahaa oo heer uu gaar sariirta lagu qaado baliyada laakiin qofka aniga kale AIDS ma qabo waa virus jirka ku jira kaliya way waxa jira marka waxa dawada ka qaatay intaas oo qof
3,314 qof soomaaliya o dhan. waa meelaha ugu badan oo waxa laga qaato waxaa weye xamar iyo garawe iyo boosaaso, hargeysa, maxaan ku raha burco, intaa weya meelaha ilaa boroma. waxaa jira marka waa isweydiiyaa mar kasta maxaa kalifay dadka inay dawadu qaadan waayaan. markaad dadka aad wareysatid qofka markuu muddo kula joogo xoogaa uu soo dabcaya markaa uga warrantay waxaan waxay yihiin iyo waxaan maxay yihiin, lakin wixii markuu qofka maqalkiisu yahay saa hadduu qofka kuu taabto waa laga qaadaa iyo neeftaa lagu kala qaadaayo. markii xaaladdu halkaa marayso qofka waa dareemi kartaa dadkii wacyigelin ma haystaan. dad badanoo hadda wacyigelinta ku qoran way jiraan oo maxaan ku rahdaa baag oo kale way samaysaa, laakiin sidii la rabay uma socoto. waxaan rabnay ilaa heer la gaarsiiyo baabuurta stikare lagu dhejiyo kale, sida canshuurtao kale baabuurtan stikare lagu dhejiyo. waxaa lagu kala qaaday in la iska ilaaliyo qofka, macnaha qofka maana sida loo geliyo dadka in la geliyo, iyo soo dhaweynta dadka qofka bini-aadanka uu kaalay xurmada kaalay, sida hadda ila fadhida oo kale dee. waxyaabaha marka caqabad waxaa ka mid ahaa aan ku soo noqday aniga askarti aan xukumaa qayb ka mid a salaami weyda salaantii gala gabatay. saa wixii ma fahansana mogta anigu kulama yaabin marka anigu waa ka gudbo waxaasi ima muuqdaan. waxaa la rabaa marka aan usoo noqdo waxaa jira 4 qodob baan ka soo qaatay dadka xanuunka ah waxaa ku kalif inay dawada qaadan waayaan. mid waa qoyska ayaga ay ka dhasheen. waxaa lii sheegayay gabar intay dhimatay xaaqin lagu dhaqay, in la taabtaa la diidaya. qofka hadduu dhintana waaba dhintay cudurka haddii banaanka laga helayo dawadiis mar wala lasoo saari lahaa. wax qarsoon keliya lagu helay. haddaan dhiigayga halkaa ku shubo waa dhiigayga waa caafimaad, cidlada hadduu ku shubo. waa qoyska lambarka koowaad. lambarka labaadna waa mujtamaca dadka. maxaa yeelay guri lagaa karayn mayo. haddii la ogaado adoo guriga degan, anigu hadda nin saa isu sheegaya maaha. dad baa waxay la taliyaan war dad baa dhashay, war gabdhaa leedahay, war xaggaa saasa, war waxaa ka baxaya wixii la cayrinay hadeer ha la cayriyo. waxaa iga badan waxaas anigo intayda faamilkayga iyo xaasaskayga dad waxaa iga badan ummadda soomaaliyeed baa ka badan inaan wax u gudbiya xaq baan leehay. maxaa yeelay rabitaankooda igu jiro. askari baan u noqday inaan u shaqeeyaan ahay. aniga puntland keliya uma shaqeeyo. registerkayga waxaa ku qoran 175 qof meelahaasaa ku qoran baan u malay. aan intaan qabtay waagii tahriibta aad u socotay aan waqooyi dib ugu celiyey. dad badan baa hadda wejiga markay arkaan ay garanaya, rag iyo dumar bale si wanaagsan oo sharaf leh aan ugu celiyey. dad lacag soo dhacaan ku celiyey. macnaha qofka Soomaaliga ama booliiska marka la yiraahdo ma aha wax ku kooban meeshuu markaa ka tirsan kaliya maaha, waa wax guud. taas marka way ugu kalifaysaa inaan anigu ka hadlo. tan kale waxaa weeye goobaha caafimaadka. goobihii caafimaadka meeshii la rabay waxay dhibaatada haddii masaajid ka timaado maxay noqonaysaa xaggee loo cararaya? meel loo carara male mogta. waa goobihii caafimaadka laftooda. goobihii caafimaadka waxaa jirta haddeer inkastoo wacyigelin badan ay bilaabatay, goobaha caafimaadka way ka mid tahay. waxaa jira dad qofka hadduu xanuunsan yahay aan irbad ku dhufanayn uma ogola in irbad ku dhuftaan hadday ogaadaanba. anigu waa inaan doontaa qof kaloo xanuunkaa qaba hebel kaala ay dur. anigu inta hadda meel tagaan meelaha aan maarata da xanuun kale iyo wax dareemo iyo maarata meelahan tago qofka usii sheegaaba si war irbaddeeda iska ilaali yayna ku mudin xanuunkaasaan la noolahay. kan timaha jarayaan u sheegaa. waan arka marka kuwa ilmeynaya arkayo leh maanta waxaa lay keenay nin dakramayo dhiig busaa igu seeriyayo wax noocaas oo kale ah. waxaa jira 8 iyo waxaa jira 74 saacadood 72 saacadood qofka inuu HIV AIDS qaadi karin waa la hayaa dawadeedii.
ka hortagi baa yaalla uu samaysan karaa hadduu hataa shakiyo qofka oo bil kuu soconaya oo reeb la yidhaha baa jirta marka culays intaa leeg hadday irbada ku muddo dawadaasaa cunaysaa kuma gelay jirkaada ma gelay mana saasu kaaga baxaya waa laga hortegi karaa ka hortag baa yaalla waxaa jira taa waa midda afraad waxaa weeye shaqada oo laga eriyo aniga uma dhicin sarison baa ka mid a rag badan oo hadda waxaan ogahay jooga magaalada oo isqariya oo dawadana hataa qaybo qaadan qayb baadiya oo carreen awal miyi baa laga keenay markii hore waa waxyaabaha dawada loo qaadan lahay ka mid taha aniga kula hadlayo anoo qaba xanuunka oo dawada cunaya oo dadka hortiisa ku laqaya yaan dad u qaadaa dhuumanaya inaan qofka sirtiis sheega anu ma rabo laakin de qof walba asiga xabbigiis kale lakin waxaa la rabaa wacyigelin la sameeyo kan qabana inuuna de dadka qaadsiin kan aan qabinna inuu walaalkii soo dhaweeyo oo sida auna odhan sidii wadaadkii o kale intuu meel ka istaaga hala gubo ama ha laga cararo unuuna odhan laakiin macnaha haddeer anu waxa keenay ugu weyn lamber kow waxaa weeye in waxaani wacyigelintiisa la xoojiyo tifiyada xoojiyaan wariyaashoo dhan iskugu tagaan meesha keliya oo isha koowaad oo wax maanta laga sii dayn karo oo maanta dadka lagu gaarsiin karo wacyigelinta horta waa tifiyada iyo waxaa weye iyo maxaan ku rahda iyo social media aniguna waxa isoo fariisiyey horta xanuun aan arkay baa ka mid ah waxaa ka mid a gabadhaasaan kuu sheegayo waxaa lagu dhaqay baan xaqin baa lagu dhaqay waxaan arkay qof bini aadan oo loo diiday inuu guri dego dadku inta badan waxay u badan yihiin dadka xanuunka inta badan la nool 90% waxay la nool dadka balwada leh waa 90% saas horta u badan yihiin waxa marka keena gurigii ودقة مركل يا حنوك أسقف كان لنا اللي يقبح قولي قالوا رينا ما أنا أود إنه قولي سكو كريستو بشير وقبدي ما هند شوقنا إن أدبان ومحسن تهاي إن أد أبرر تدوحي دد بدن هنتي قريان إن أو أد سهر استعتد ومدى الصوماليات كبعدنا أد كلا هذا الشيء عذر كاني سيدو كو دعي إن إيو سيدا لغو كلا قادو إن دد كلا فقوقين waayo hadalada hadda waxaan ka dhadhansanayaa haddii faquuqu uu bato xaasidnimada iyo waxaa badanaysa qofka cudurkan la nool inuu dadka kala gaarsiiyo ama dhiig cunada ha ugu shubo ama wax kale ha sameeyo ama ha guursado ama waxay doontaba ha noqotee in ay xaasidnimadu badanayso waxaan kaloo fariintaada ku jirta in cudurkan aad hadda sheegayso tirada la nool iyo tirada qaadata dawadiisa inay aad u kala badan tahay oo ay badan tahay muxuu ahaa dadka la nool saa awadeed aad dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo kulligood wasaaradahooda caafimaadka aad kula talinaysid in il gaara loo yeesho arrintan waa fariin wanaagsan aad baan u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan marka ku raaciyo dadka qaba cudurkan intaad garanayso wax ficil oo aad u samaysay miyaa jira haya way jiraan dad baa isu guurinay ilaa 10 qoys baa hadda dhisan oo aniga isu guuriyay aniga iyo gabar xaaskayga yaana kaligay oran aniga waxa jira aniga waxaan guursaday gabar xanuunka la nool aniga kula hadlay hadda muddo 2 sano waxaan qabaa gabar xanuunka la nool hay'ale inta qofka bilaadanku u baahan yahay u baahana qof inaan dhibaatayana ma rabo reer wada degan meel degan baana dawadeeduna qaadataa waliba ayada iga fiican xagga dawada oo ugu waanayso ugu fiican waliba waa dhakhtarad waxa jira dad badan oo aan maartay isu guurinay baa jira oon maartay gabadhay soo helaysaa ninkaan soo helayaa markay soo hesho waxaa leenahay ninkaas saasuu na yiri saasuu rabaa wax bariis u kariyuu rabaa saan weeye adinku isqarsada haddaa rabtaan laakiin culays baa meeshaa ka degay labada qof oo midba cidlo iska socday baan kow mid kalaa jirta anu tv-ga in lacag laga siiyo maanta wax ku helo kuma soo fariisa ummadda Soomaaliyeed hay dhageysato laakiin waxaan rabaa in waxaani ay yeeshaan
wax la ogaya inay noqoto wax la qarqariyaa kuma jiraan wasiirro qabaan ogna baarlamaan qabaa ogna xildhibaano haddana lagama hadlo war annagaa qabnoo la soo taagan laakiin waxaa la rabaa wixii in wax ay yeeshaan oo sharci leeyihiin oo qofka dembiile u noqon karo qofka xanuunka qabo dembiile noqon karo qofka dhibka u geystana dembiile isna maaratay la qaban karo laga qaban karo oo qofka xuquuq yeelan karo hadduu asaga dhib wado oo dhib noocaas kala wado waxaan kaloo kugu darayaa dhiigayga haddaan istaan shubo hadda meel ku shubo ma qabo cunno laskuguma dari karo waa taa waan kuu sheegaya horta weel dadan wax dadan irbad aan iskaga qaaday dhiigga oon qof ku dhuftay wax noocaasaa lagu kala qaadaa iyo waxa kaloo jira meel intii cad la hilib go-ay oo meel kaloo nabar leh taabtay wax ay huursan oon dabayli taaban oo ilays arag waa inuu meel kale taabtaa laakiin 75% waa galmada 25 soo haray anoon hadda aan maarta sii dhaleecaynaynin waxaa laga sheegaa qolada ilkaha bixisa irbad qofay mudday tima jarka meelahaasaa lagu sheegaa inahaas wey way ku timaadaa waxaa la rabaa marka qolada tima jarkan hadda inta badan anugu kuwaan arkay ama kuwa aan ka jarto o kale way gubaan way fiican yihiin oo ashit bay ku mariyaan way gubaan waa inuu qofka nadaafadda ilaashadaa oo ilaashadaa ko waxaa la rabaa waxaan muhiimadda koowaad oo ugu badan labada maado oon aad iyo aad xoog u saarayn oo hadda aan leeyahay inay dawladdu ama mid federaal ha noqoto ama mid dawlad gobol ha noqoto ama mid goosatayba ha noqotee waxaan rabnaa inay dadku qof kastoo af soomaaliya ku hadlayaan la hadlaya waxaan rabaa dadku inay xuquuq yeeshaan oo hay-adda u qaabilsan meel kasta hay-ad bay leedahay somaliland way leedahay puntland way leedahay xamarna way leedahay annaga waxa weeye baag dawladda agaasimo dhan bay leedahay waxaa laga yaabaa inuu asaga laftiisa culays haysta oo kale oo awoodba u sii lahayn inuu dad dhibaataysan ama qofkii uuna odhan karo anuu xanuunkaa qaba baa guri laga saaray qofkii waaba qof dee baqayaba dee waa maqlaysa hala dilaaba le qayb baaba le moogta haba la dila marka qofki waaba aamusan yahayba mar guri laga saaray guri kale aan laga aqoon bu aaday haddana maanta ba laga saaraya isagii muxuu samaynayaa wax alla dadka soo ola mid noqdo asna wax alla wuxuu raba samaynaya waya ugu dambeyn marka gabagabadii adigoo ku mahadsan maaragtay xogtan iyo arrintan aan la wadaagto waliba wax adiga maaragtay saameyn kugu leh oo aad la soo bareerto halkaan la soo fadhiisato aan kaaga mahad celinayno dad badan oo ku daawanayana aan filayo inay wax badan ka faa'iideen wiilka iyo gabadha dhalinyarada ah ee raba hadda inay isguursadaan iyo ninka raba in xaasla ah oo sidaadoo kale ahoo raba inuu xaas kale ku daro oo uu xaas labaad guursado maxaad kula talin iyo kan eebdarada ku socdaba ha waxaan leenahay hal isbaaro keliya kuma timaada xaaska keliya wax badan ba ayaan waxba haddaan wax qarqarino waxba hagaagi mayaan mogta dadka ha isbaareen ha tageen meelaha goobaha caafimaadka weliba 2 jeer ha isbaareen waxaa yeelay qofka jirkiisa markuu ku maqan yahay 3 bilood baa la iska helaa jirkiisa inuu kusii maqan yahay laga yaabaa 3 bilood inuu gudbin karin baa suurtagala laakiin dhaqaatiir inaan wareysano taas kale ka wareysano way fiicanta adinka wareyska taas dhaqaatiir ku dartaan waxay ilaanu dhakhtar ma laakiin inta aan ka aqaan iyo culayska uu leeyahay waxaa jira nin waxaan ka soo qaadayaa nin anaga aan saaxiib ahayn baa markaan meel tagno oo meelaha meeliska iyo meelaha maar la fariistay iyo meelaha lagu sheekaystay meelaha dumarkii lagu hasaabo aan tagno buu wuxuu oran jiray war qabiilkayga ha sheegin maalinkii dambe waxaan ku yidhi warriyow qabiilkaada baa qabiil macaan oo fiican oo saane maxaad kugu dhacay oo ma intaa u tirada halka wuxuu yidhi haddaan aniga haddeer adinka reer hebel baa tihiin oo hadday reer hebel tiraahdaa cidana infirin lakin marka anigu qabiilkaysi qabiilka isaga argagixisaabi marka xanuunkan isaga argagixisa xanuunna ka daran baa jira xanuunka markii la yidhaahdo AIDS buu qabaa ama HIV buu qabaa waxaa weeye qofka barashaska dhacaya maxaa yeelay askar inay kala carartaan gaara heer kala cararaan
waan dareemi karaa culayska waa wacyigelin jirta waxaani cudurro waxaa jira aragtida ama taabashada lagu kala qaado ama neefta lagu kala qaado asaga taabashada lagu kala qaadayn neef baan lagu kala qaadayn cunto alla cuntaadna kala qaadayn ma garatay jiif alla jiifsataadna ka qaadayn ma garatay dhar alla xirataadna ka qaadayn qofka marka ilaa xadka intaa dhan waxaa weeye kuwa ka xun oo beer xanuunka ka mid tahay oo ma garanaysaa dhiikarku ka mid yahay oo sokortu ka mid tahay la sheegi mayo waxba looma arko waxaa laga yaabaa in beerku ka xanuunsan yahay hebelo macnaha waxaasaa ku dilaacay saasuu yahay la yidhaahdo halkaa la hayo 10 qof ag fadhido ajayfigan laga cararo waa aqoon la-aanta jirta weeye waxaan rabaa marka in waxaan la guda galo haddaan wixii xan ka dhigno wuu badanayaa culayskan maanta taagan oo aan ka hadlayo oo waxaa laga yaabaa 100% inay hadda 100 qof inuu hadda uu qabo cudurka Soomaaliya bay ku dhowda 100 qof inuu qof qabo u dhowda way ka sii badanaysaa haddaan runtaana ka sheegin dadkeena badbaado u baahan dadkeena wuxuu u baahan in la badbaadiyo wax loo sheego oo laga hadlo oo culimada ka hadlaan oo dhaqaatiirtu ka hadlaan oo baarlamaanka ka hadlo oo madaxweynaha ka hadlaan ku soo darsadaan maxaan guraada khudbadooda ku soo daraan kuwa wax loo qabanay in laga kamid laga dhigo ana hadda culays dhaqaale ima haysto laakiin waxaan dareemayaa culays inuu jiro aad u liita maxaa yeelay qofka markuu gaajo haysto ama qof ragaya ama qof dumar ama waliba dumarka markuu qof dumar iyo gaajana haysto dee wuxuu doonuu bareeri karaa laakiin markuu ogyahay berri haddii gardarro laga galo qaladka laga galay uu helayo xaqiisa helayo waxaa laga yaaba wax badan markuu dembi galana lagu qabanayo lagu qaadayo ogyahay qofku waa inuu dembile noqon karaa ama eedaysano noqon karaa dembiga maxkamad baa wax dembiyeysay waa inuu eedaysano noqon karaa qofki laakiin qof aanan war naga daaya xiran hanaga daaya xiran haddii la yahay xanuunkaasu la noolyahay haddii ba la yidhaha xaaladdu saa noqotay dee marka dambe kulli dadka o dhan baa qaaday marka wixii waa in laga hortagaa macnaha heerkii Uganda ay gaareen hadda ma qabaan hadda Uganda waxaa tagtay heer waxaa la gaaray maartay iskooladu iyo maartay dad aad la waayo bay gaartay heer ay gaartay oo 60% bay noqotay 60% bay noqotay haddana waa 4% buu sii maraya waa dareemi kartaa marka dadka noocaasa anigu wax badan baan dareemayaa seminaaro badan kama qayb gelin aqoon badan uma sii leeyahay laakiin culayska waan dareemayaa oo maxaa yeelay mas'uul baan wax badan baa saaran marka waxaan ku soo koobayaa in waxaan loo istaago wax aniga haddaan maanta ka hadlayo hebel baa saa yiri in la yiraahdo ma doonayo waxaan rabaa waxa in loo istaago madaxweynayaashan kala hadlayna tirada badan maxaa yeelay xaaladdu meel adag bay maraysaa marka waxaan rabnaa dadkeena Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in loo helo badbaado loo helo lagana hadlo intaasaan kusoo koobi karaa yaad ma hasan tahay Bashiir waana kaga mahad celinayaa geesinimada iyo dadaalka iyo waxtarka aad muujinayso runtii in maaragtay aad bulshada hortimaadid oo aad muujisid cudurkani halistiisa iyo inaad adigu naftigaaga qabtid sababihii aad ku qaaday aad ka sheekaysid waxaan kaloo ku faraxsanahay oo aan filayaa dadka tirada badan oo muuqaalkan daawan doonana ay kuugu soo duceyn doonaan xanuunka hadda inta yar ee kaaga harsan maadaama iimaan uu ka muuqdo oo aad u sabartay oo runtii taariikh badan ka soo martay oo aad Allah ugu dhawaatay oo aad xajki u tagtay oo aad Rabbi u bariday oo maaragtay maanta qurux ay ka muuqato oo aan ba lagu moodin in xanuunkaasi qabtid in uu inta yar ku harsanna wala subhanahu wa ta'ala uu ka qaado dad badan oo laga yaabo ku daawanayo inay isqarinayaan laga yaabana inay dawada isticmaalaan inay si fiican isu baaraan in aysan ummadda kale ee walaalahooda Soomaaliyeed aysan cudurkan u gudbin saasan rajaynayaa bahdeena theater inaad sirtaada iyo xogtaada nagu aamintid oo aad halkan timaadid oo aad barnaamijkan nagala qayb noqotid aad iyo aad baan kuugu mahad celinaynaa anoo ka hadlaya dhamaan muxuu ahaa la hadlaya dhamaan mas'uuliyiinta iyo maamulka kale ee shirkadda iyo farsamo yaqaaniinta anoo matalaya aad iyo aad baan mar labaad salaanta kugu soo celiyo kugu mahad celinayaa biladii geesinimadan ku siinayna ma sha Allah aad baan